wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka hooyo macaan. barnaamijka hooyo macaan waxaa toddobaadkii habeenkan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee VOS. waxaana markaasi barnaamijka ku marti qaadnaa hooyooyinka anagoo markaasi ku eegnaa doorka haweenku ay ku leeyihiin horumarka dalka. barnaamijka habeenkan waxaa marti ugu ah hooyo Aamino Xuseen Cali oo kamid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo aan ka wareysan doono amuraha haweenka iyo haweenku doorka ay ku leeyihiin horumarinta dalka. hooyo Aamina kusoo dhawo barnaamijka hooyo waa dhawahay maamo aad baan kugu mahadcelinayaa soo dhaweyntaada iyo gacmo furan anigana welcome. anaguna aad kaga mahadcelinaa sida wanaagsan ee nooga ajeebteen barnaamijka markaas nagala qayb qaadato. markalena aan kusoo dhaweynaan ku mahadcelinaynaa. hooyo waxaan ku leenahay aan ku weydiinayaa waxay tahay warbixin guud inaga sii dalka xaaladaha uu marayo iyo inkastoo aad usoo joogtay oo aad ahayd maamooyinkii qaranka oo wadanka marar badan usoo halgamay oo dhibaatooyinka uu ku jira marxaladihii badnaa kasoo qayb qaatay. bismillaahi raxmaan raxiim. runtii su-aal fiicanaad i weydiisay waayo dalka ayaad wax iga weydiisay. dalka hadda horumarkiisa aad u fiican yahay. waqti waxaan soo marnay aad u adag. waqti oo fiican anaga aan soo qaadanay way jirtaa ilaa iyo 69kii ilaa iyo 90kii dagaaladii. kabacdi waxaan galnay burbur aad u xoog badan oo aad u jeediin. hadda 10 sano iyo wixii ka dambeeyay waxaad u malaysaa in dalka uu marba markay ka dambeyso madaxweynayaasha isu bedelayaan inuu dalka uu sii gaarayo higsi aad u fiican. cunuga markuu dhasho horka ma soconayo. dalkana 30 sano ayuu soo burburayay. 4 sano lagama dhigi karo wadan oo salaxan oo heer sare lagama dhigi karo. waayo stemba ayuu qaadanayaa. hadda dalka hadda wuxuu taagan yahay meesha aad ugu fiicneed. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu sida oo hadda uu ku sii socdo inuu sii koro sidii cunug la barbaarinayo oo kale uu aad u barbaaro dalka oo horumarkiisa laga shaqeeyo. waa tahay ururka haweenku door intee leeg ayuu ku leeyihiin nabadeynta dalka? ururka nabadeynta door badan ayay ka qaataan. waxay ka qaataan dhanka nabadda, isdhexgalka bulshada, horumarinta militariga, wacyigelinta. had jeer waxay u taagan yihiin dalkan inay horumariyaan ururka haweenka. hadday maamul goboleed ay yihiin, hadday maamul goboleed ay joogaan iyo hadday banaadir joogaan dhexdoodaba markasta waxay u taagan yihiin inay dalka u hiiliyaan. waayo dalka waxaa iskale da'da yar iyo haweenaa iskale. siyaasi waxaad u malaysaa inuu dalka sii fudagedinayo. annagan dhexdan ka haynaa waa celcelinayna dalka inaan horumarinaa rabnaa. waxaan ka qaadanaynaa amnigaan qayb ka galnaa, wacyigelintaan qayb ka galaynaa, waxaan ka galnaa isdhexgalka bulshadaan qayb ka galnaa. waxaad u jeedid dariseynaan samaynaa, booliska ayay la shaqeeyaan, militariga ay la shaqeeyaan, asluubta ay la shaqeeyaan. meel kasta oo dhaqaaq uu ka bilowdo baarlamaanka aan ka shaqeynaa, wasiirada ayaan la shaqeynaa. runtii wax kasta oo dalkan dhaqaaq uu sameynayo ururka haweenka waxay ka qaataan doorkooda ugu muhiimsan. marka loo eego xagga dib u dhiskana dalkan wuu soo burburay. sida hadda aan kugu sheegayba dalkan 30 sano burbursanaa. dalkana dadka ku nool ma ogi asaga laguma noolo. dadka waxaa laga rabaa dalkooda in ay dhistaan. annaga wacyigelintanada ugu weyn dadka qurbaha jiro ayaan dalka soo gelinaa. siday dalka dadow ay u maalgelinayaan aan ka soo celinaa siday dalkooda u maalgashtaan. waad u jeeda daararkan oo dhan oo raggaan dhisanayo wacyiganagay ku imaadeen, kartidanaday ku imaadeen inay dibdhis badan ay sameeyaan oo dalkan u gaaro heer guryahooda waaweyn ay wadamada aan la sinaano. biyaanooyinka ka biyaan hadda waxaad u malaysaa in 8 biyaan iyo 10 biyaan la marayo. waxaad arki doontaa muqdisho oo 10 biyaan laga dhisaayo oo dalxiis loogu imaanayo.
waxaa dalka dadka usoo gelinayna waxay tahay oo dibadhiska loo samaynayo waxaa joogo dhalinyaro waxbarteenaa joogo haween ha ahaadaan rag ha ahaadaan oo 30 sano oo burburka lagu jiray wax la barayay wiilashaasaa waxaa la rabaa dalka inay wax ka helaan kan kii hotel ka shaqaynayo kii raadi ka shaqaynayo kii oo wada ka shaqaynayo kan ismaha ka shaqaynayo horumarka dalka saasuu ku imaanaya dalka haddaan qofkiisa u dhisan asaga isma dhisaayo waa tahay maxaa kala socotaa qoondada haweenka qoondada haweenka mar way la ciibsan tahay qoondada haweenka mar aaday u la ciibsan tahay markii la yidhi ii sheegadi hala ilaaliyo waxba ma tarto runtii madaxweyne xasan sheekh maxamuud amar u dul dhigay amarkii 24 xildhibaanada hadda ay ku joogaan amar lama dul dhigin hala ilaaliyaa la yidhi hala ilaaliyo wax annaga horta na qabata ma aha haweenka waa la xoogayaa dhanka dhaqaalaha waa lagu xoogayaa waayo burburkan oo dhan markuu dhacayay haweenka waxay samaynayeen waxay soo dhisaayeen dalkay soo dhisaayeen awlaadday soo dhisaayeen waxbay wax soo baraayeen tii qurbo joogta iyo tii dalka joogta dhexdooda waxay soo saaraysay dalka horumarkiisa soo saaraysay dalka horumarkiisa waa dhalinyarada ay ka shaqaynaysay kan ninka ana waxbuu tabcanayay iyada waxay tabcanaysay waxay gelisay wiilkeeda iyo gabadheeda gelisay haddana siyaasaddii hadda way u soo istaagtay maadaama annaga inta tarafaad aan soo marnay siyaasaddii inaan kusoo biirno sakuuray naqatay waana kusoo biirnay dhaqaalii waana naga dhaqaali badan yahay markaan mar kastaba cabsiyaana hayso inaan sanadkan 30% aan weyno ayay u dhowdahay inaan helana waa u dhowdahay waayo hadda inkastoo uu ra'iisul wasaaraha uu afkale uu ka adkeeyey waxaa la rabaa in afkale la iskugu darin oo xoog iyo amar in la iskugu daran aad u rajaynaynaa markii loo eego maadaama dowladii hore xasan sheekh maxamuud atagay amar uu duldhigay hadda makuu muuqataa in qoondadii ay soo hagaagayso ay horusocod sameynayso oo haweenku ay helayaan 30% meeshii ka ahayd ama 24 noqoto ama 26 noqoto in ay ku sii dhawaanayaan makula tahay maya cabsiya iga hayso cabsiya kaaga muuqato waa tahay bacdama aad tahay xubin ka mid ah ururka haweenka aadna u firfircoon ma laga yaabaa inaad ka mid noqoto baarlamaanka hadda la dhisayo horta waxa lagu sheegaa horta wax ilaahay qoro waa rabbi hadduu ii qoro horta qofna igama celina ilaahay wuu isiinayaa waa jeclahay inaan ku biiro oo wacyigelinta aniga aan banaanka ka waday baarlamaanka dhexdiisa aan kusii wado ii sheegadiyan dalka waxaa xukuma baarlamaan annaga ururka haweenka haddaan nahay haddii nagu biirin lahaa annagoo isqabno baarlamaanka xibina nooga dhigi lahaa aan ku jiri lahayn dalka hadda meesha uu ku jiro marxadda hadda kuma jiri lahayn waxaan ka dhigi lahayn dal aad u horumaray wadamada aad u jeedid oo horumaray haweenkaa horumariyey annagan waayo waxaan bulshadan la soo dhaqanay bulshadan aad la soo shaqaynay burburkan markuu dhacay oo lasoo gadoomay oo markii sheekh shariif la doonay cabdullaahi yuusuf dadkii annaga iskoobaxa qaatay oo dhulkan xaaqaan ahayn laamigan hadda ragga ku xaragoonayo dadkii xaaqay oo nadiifiyey oo bocbooca ka jaray calagaroobka ka jaray wadadan aad u jeedid kilomitir 0 ilaa iyo kilomitir 5 dhexdoodaba dadka calagaroobada iyo ka jaraan annaga waxaan u jaraynay oo aan u taagnayn aan ka shaqaynayna dalka horumarkiisa leen ka shaqaynayna annagoo haddana baarlamaanka haddii ururka haweenka qaranka uu baarlamaanka ku biiro waxaa laga yaabaa qashinka baarlamaanka ku jira inaan ka xaaqnab wixii dalka haleynaya oo dhan nadiif inaan ka dhigno dalka aan ka dhigno dal horumarsan oo isku dabaridno maadaama isaba dhib la-aan baa haddaa wadooyinkii iyo dhibaatooyinkii burburkii wadooyinka hareeyey aad saa u nadiifiseen in dowladdana markaasi aad horo socodkeeda aan ka shaqayno ka shaqayn kartaan waa tahay
هذا ما سنتها مدة كلام كودين إنه حتى محاو باقي ساديو كداونية إيه ولي ومسير كي مدح ذلك وعد كل هذا هاي فرينا ذوق بنيسان fariinta u soo gudbina waxay tahay horta waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka waxaan ku xijinayaa heerta wasaaraha dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada hadda oo waqtigooda dhammaaday heerta wasaaraha ayaan baaq u dirayaa heerta wasaaraha baaq waxaan ugu dirayaa annaga dhaqaalaha haweenka dhaqaalo badan ma haystaan fiiga 10 tiraadeen 5 laga dhimay heerta wasaaraha wuu ku mahadsan in uu naga adkeeyo maamul goboleedyada inna xoogin in la ilaaliyo in amnigooda la ilaaliyo in haweenka talaabada kasta ay qaadayaan amnigooda iyo horsocodkooda oo heerta wasaaraha uu naga ballan qaado inuu ilaalinayo 30% inuu barnaamijka soo dhigay qoondadooda haweenka inuu ilaaliyo amnigooda ilaaliyo markii maamul goboleedka uu la tago boobkana inuu ka ilaaliyo intaasaan uga baaqayaa ragow idinkana waad ii jeedaan dalka waa wada leena waa idin dhalnay waa isqabnaa waa nala dhalateen boobka naga dhaafa annaga waxaan rabnaa gabar bakin laaya waxay tiri dadkeeda u yeeray waxaa la yidhi kursiga annaga naag uma rabnaa la yidhi waxay jawaab ugu jawaabtay naagtiin markaa la seexanaysaan gabar ha dhalina marka ilaahay baa bixiye markaan waa tii bakiin ereygaas ay tiri markaan gabadhaada horumarka saad ugu rabtid annagana horumarka ugu rabnaa gabadhaada saad madaxweynenimada ugu rabtid aabbow annagana madaxweynenimadaan rabnaa aabbaan dhale saa gabadhaada u rabtid inay wasiir kuu noqoto ani inaan wasiir noqdaan rabaa i horumari waana garbaha i qabta waana i qaada gabdhaha dhan soomaalida hala qaado واتاي حق باقة ومجلس وجودني هذا مسير كي دولة بعد لو بدأ كيسي شعب كداوني يجونا محا شعب كيجونا وباقة سا شعبك وحلاه حوانك قرب سيا حوانك قرب سيا واستاجا تيد أو كجرتو جوري حصوك عضو iyadoo ka hadlaysa qoontada haweenka waayo gabadheeda oo ay rafaadka ku soo bartay ay waxay helaysaa shaqo maaha in dawladii le 30% baarlamaan laga raadiyay ma waxaan 30% aan ka rabnaa shaqaalaha dawladda oo wasaaradahan ka rabnaa telefishinadaan ka rabnaa jaamacadahan ka rabnaa istaaladan ka rabnaa gabdhaha nadaafada oo wadooyinkan xaaqayaan ka rabnaa gobolka banaadir aan ka rabnaa system kasta oo lagu dhaqaaqo 30% aan ka rabnaa hooyo waxaan kugu baaqayaa maadaama aad guri joog aad tahay gabadhaada aad wax soo bartay gabadhaada aad wax soo bartay haddii gabadhaada oo jaamacad ay ka soo baxday ay shaqaale ku noqon weyso aad 14 sano ama 16 sano wax soo baraysay ay ku noqon weyso boolis gabadhaada ay ku noqon weyso military gabadhaada ay shaqaale dawlad ku noqon weyso xitaa macallin jaamacad ku noqon weyso dhakhtar ku noqon weyso guriga waxaad ku joogto waa adag tahay ka soo baxa guriga gabdhiina say shaqo ku heli lahaayeen oo aan u doodno aan u istaagno baarlamaan wasiir la raadinay maan qoontada waxay nooga maqan tahay meelaha yar yar oo idinkaad arkeen nooga maqan tahay fadhiga ka kaca hooyooyin oo fadhiga ka kaca gabdhii aad wax barteen mijika ku celinaysiin ha ku celinaa jikada gabadha waa inay u horumartaa dalka waa inay wax qabsataa waa inay iyadan ku xisaabtantaa beelkeeda waa inay ku xisaabtantaa inay nin gacantiisa ay tuugsanin fadhiga ka kaca hooyaal waad maqlaysiin ka soo baxa guryaha aan raadina 30% aan u dagaalano gabdhaha anagoo wax bartay yaan wiilasheenada wax barteen baagamuunta hooyo waxa jirto ay dhashay afarta wiil wax soo bartay ay guri sariirta u jiifaan maxaad u jiiftaa sariirta maad istaagtid banaanka afar wiilaan ku soo baray anoo nyaanyo gadaay anoo shaah gadaay anoo qaad gadaay sababtay afartayda wiil u jiifaan maxay tahay maad miiska qaraacdid dawladda markaas wax ka qabanaysa haddaad sariirta jibtay wiilashayda baagamuunta waay gabdhahayga baagamuunta waay wax waan soo baradaa leeda weligiin wax meelaysiin banaankaan istaagno aan wax aan dhacsano ragga waa laga dhacsadaay aan ka dhac guud ahaan waxaan halkaasi kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni hooyo macaan oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa aada ugu mahad celinaya oo marti ugu ahayd maama aamine xuseen cali oo aan aada ugu mahad celinayno barnaamijka intuu soconayay dhanka kamaradu waxay ahayd xasan yare farsamadana waa injineer faysal intaan barnaamijkan mid lacaan dib u kulmi doono
doono toddobaadka xiga waxaan kaga sii tegaynaa sidaas iyo مع السلامة